السلام عليكم غير شرفت لكم سوداء كل تي في ما انتلقى حنكو سو غدبينينا warbixin ku saabsan masaajid 16 qarni dhisnay oo la dudumiyay haddana rabeen macbad loo bedelo masaajid dumintiisa oo dhiig badan ku daatay oo lagu bedelay macbad ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa sheegay in macbadka Hinduuga ee laga furay magaalada Ayodhya uu yahay astaan casri ah oo ka turjumaysa dhaqanka dadkaas oo hadalkan sheegay xilli uu maanta dhagax dhigay macbadkaas oo dhaliyay muran aad u badan dadka Hinduuga ayaa sanadkii 1992 burburiyay مسجد بسنا كن يلح بقول أصلا أما لحية طبعا قرن سيد هذا أتقانه وحنا تلاباس كذا شيء على الله يقول أنت لو كن أغف أو بدنا مسلمين تكلي دي دومنت المساجد كاس اسمه معبد كان واحد كمية بلنقادي وسمير وزار مودي اللي ودار الشدة قليل بل صدتك للاعي سياسي دي سايا شيء إن ما أنت أتى مع المبدأ مثل ما كان مناسبة دفورتان كمعبدك أي موجنسو تلابق عن بدعين oo lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaas ku nool maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa sanadkii la soo dhaafay dhulka lagu murusan yahay oo xukunta dadka Hinduuga ah kadib 10 sano oo murankiisa soo jiitamay rabshado badan oo dhiig badan ku daatan ay ka dhasheen dadka laga tirada badan yahay muslimiinta ayaa xukunkaas aad uga carooday dhagax dhig uu sameeyay ra'iisul wasaare Modi waana arrin aad looga naxo in muslimiintaas walaaleen Ilaahay dhibaatada istaa ka dulqaado أنا دبعتنا نستعنا قد الغاض مسجد كان يا مسجد عادي فعوينا وأنا مسجد الإسلام مدلعي طبعا قرنية إسلام كسيد يسوع الشرف كلية من مدى دي من مدى ماشي كبع هذا وحنا لنا إن مساجد لعي طبعا قرنية بسنا لو بدل معبد تاسمع دبعت عادي وين لأنك مسلمين تاريخ المسلمين تبصوا قرتي يعني غير شرفت العادي مقالك كاشن سيشر قري فيديو لايك نصارى جنرال كان سكريب ده شيء هذا لصعتان مقالات دنبه عن سوق اللي دونه وعن ما تنتين داود ياشين شرفت له معلومة أحسن